bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal daawadayaal meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalkayogu idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa bartan youtube-ka ku leednahay ee run sheeg saaxiibayaal kusoo dhawaada warbixin gaar ah aynu ku eegi doono kacdoon ka dhan ah laftigareen oo ka bilowday magaalada muqdisho maxaa uu salka ku hayaa xiisada siyaasadeed ee lagu furay cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo hogaamiye maamul goboleedka koonfur galbeed masaxba in damul jadiid ay u heshiiyeen cabdicasiis xasan laftigareen iyo sidoo kale qorqoor saaxiibayaal warbixintaas oo faahfaahsan intaynu gudagelin waxaad ka codsanaynaa haddii aad janalka ku cusub tihiin inaad subscribe inoo saadhaan like-na aynu dhiirigelisaan gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle saaxiibayaal sida hordhac warkaygaba aad ku daawateen haddaynu ku bilowno kacdoon ayaa ka bilowday magaalada muqdisho kaasoo la doonayo in xilka looga tuuro hogaamiyaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii xukunka ka degay mudane maxamed cabdulaahi farmaajo dagaal siyaasadeed ayay bilaabeen kooxdii damul jadiid waxayna doonayaan in qof walbaba ay ka saaraan fursada kaasoo ay u arkaan in uu hor istaagi karo damacooda ku aadan boobka hantida ummada soomaaliyeed iyo sidoo kale heshiisyada ka dhanka ah wadamada shisheeye shalay madaxweynaha hadda xukunka baneeyay mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu madaxweynaha kale ee markaasi xukunka ku wareejinayay waa xasan sheekh maxamuude waxa uu sheegay inuusan jirin wadan uu heshiis la galay iyagoo hadda doonaya inay wadamo badan heshiis la galaan kooxda damul jadiid cabdicasiis xasan maxamed laftigareen hogaamiyihii ugu adkaa ee soo hogaamiya maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa hadda u muuqda in uu wajahayo culays kaga imaanaya dhinaca damul jadiid iyo sidoo kale kooxaha la midka damul jadiid oo 5 sano ka hor dalka laga cayriyay ayaa hadda dalka dib ugu soo laabatay waxayna doonayaan hantida yar ee u hadhay ummada Soomaaliyeed inay horey u sii qaataan maamulka koonfur galbeed oo hogaamiye cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa loo arkaa maamulka kaliya ee hadda hor istaagi karo damacooda ku aadan inay dhacaan hantida ummada Soomaaliyeed balse taa bedelkeeda hadda waxay wadaan in xildhibaanadii laga soo doortay maamul goboleedka koonfur galbeed ee dowladda federaalka ay Soomaaliya ku matala iyo sidoo kale xildhibaano kale ama xildhibaano horey u soo matalay maamul goboleedka koonfur galbeed ay hadda dagaal weyn ku hayaan hogaamiyaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen way iska cadeeyeen madaxweynaha farmaajo hadii uu xukun ka baneeyo in madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen qorqoor iyo sidoo kale cali guudlaawe ay baneynayaan maamulada ay hogaamiyaan maadaama loo arko inay yihiin siyaasiyiin si aad ugu dhow lana dhacsan hogaamintii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo muqdisho iyo baydhabo ayaa waxaa ka kala socda kulamo siyaasadeed oo iska soo horjeeda kuwaas oo ay wadaan siyaasiyiin sare koonfur galbeed sidoo kale waxaa soo baxaya guux ku aadan mooshin uu diyaariyay madaxweynaha hadda xukunka la wareegay mudane xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa kaasoo la doonayo in xukunka looga tuuro cabdicasiis xasan maxamed laftigareen madaxweynaadkiisii weli wax badan ayaa uga dhiman balse kooxda damul jadiid ayaa u arka in cabdicasiis xasan maxamed laftigareen uu doorashada kale haddii la qabto uu kusoo bixi karo taa bedelkeedana ay hadda diyaarinayaan in ay lacaga malaayiin dollar ah ay ku bixiyaan si xukunka looga tuuro cabdicasiis xasan maxamed laftigareen kooxo badan oo u abaabulan qaabka damul jadiid ayaa hadda waxay diyaarinayaan inay lacaga badan geeyaan magaalada baydhabo si ay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ay siiyaan uguna soo jeediyaan in talada laga tuuro maamulka cabdicasiis xasan maxamed laftigareen hogaamiyahaas oo ah hogaamiye aada ugu adag in maamulkiisa uu gaarsiiyo horumar dhinacyo badan taabanaya muddadii uu xukunka joogay isbedel badan ayaa ku dhacay maamul goboleedka koonfur galbeed nidaamkiisa dawliga iyagoo wada shaqeyn dhow la lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya markaas xukunka joogay waa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo siyaasiyiin horey uga soo tirsanaa jiray maamul goboleedka koonfur galbeed iyo kuwo ku matali jiray dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hadda waxay doonayaan inay burburiyaan maamul goboleedka koonfur galbeed iyagoo danahooda siyaasiga ah eeganaya
madaxweyne Laftigareen ayaa hadda u muuqda mid ku kaliyoobay maamul goboleedka Koonfur Galbeed balse hadda waxa uu garab ka filayaa xildhibaanada iyo sidoo kale shacabka reer Koonfur Galbeed kuwaas oo waqti adag u hiliyay horumar badan oo gaarsiiyay dhinacyada maaliyadda iyo sidoo kale horumarada kale ee dalka ka socday. xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa tilmaamay inaan marnaba laga yeeli doonin xildhibaanada doonaya inay burburiyaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed balse waxa uu ku baaqay inay mar walba ka shaqeeyaan maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale midda reer Koonfur Galbeed. Mahad Cabdiraxmaan ayaa sheegay in nimanka doonaya in maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay dumiyaan inay yihiin niman ka yimid dibadda oo aan dalka joogin oo kaliya fiirsanaya danahooda shakhsiga kadibna u laaban doona wadamada ay ka yimaadeen. culeysyada badan ee siyaasadeed ayaa ku soo kordhay dalka. Imaaraadka Carabta waxay doonayaan in ay danahooda sii wataan inta isku mashquulsan yihiin siyaasiyiinta Soomaaliyeed. saaxiibayaal muddadii 5 sanaad ee hogaaminayay Farmaajo waxa isbedelay inay isku mashquulaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed balse taa bedelkeeda waxa uu ku hanweynaa in ummadda Soomaaliyeed iyagu ku mashquulaan horumarka siyaasadda si guudna ay isaga daayaan balse hadda ummadda Soomaaliyeed waxa ay dhagta u taagayaan isbedelada uu sameeyay Xasan Sheekh Maxamuud oo ku wajahan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Hirshabeelle Galmudug. saaxiibayaal waxa xusid mudan in Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen uu ku yimid doorasho oo ku tagi karo doorashadii markaasi lagu soo doortay oo kale in looga guuleysto balse dhinaca kale hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo muddo dhowr iyo 10 sano ku fadhiya kursigaasi waa maamulka Jubbaland ayaa hadda u muuqana mid si sahlan looga qaadi karo maadaama uu si gooni ah ula shiray madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si loogu ilaaliyo booskiisa goonida ah. isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay guud ahaan dalka ayaa hadda waxa uu muuqdaa inuu saameynayo maamul goboleedyada qaarkood sida Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Galmudug. dhinaca kale waxa maalmihii ugu dambeeyay socday wadahadal u dhaxeeyay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen hogaamiyaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale xildhibaanadii tirada badnaa ee uu gacantiisa ku soo saaray kuwaas oo hadda doonaya inay ka codeeyaan siyaasadda Soomaaliya. waxa ku dhacay isbedel weyn waxaana hadda magaalada Muqdisho caasimadda dalka ceegaaga lacag malaayiin dollar kuwaas oo xildhibaanada la rabay in la siiyo si danaha shakhsiga ee markaasi dawladdu walbaba ay rabto in loo fuliyo. Imaaraadka iyo Kenya waxay u arkaan Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen inuu yahay shakhsi la mid ah madaxweynaha hadda xukunka baneeyay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. mar walba waxa ka go'an in qof walba Soomaalinimadu ku weyntahay bulshadiisana wax taraya in ay ka saaraan siyaasadda iyo sidoo kale markaasi talada uu hayo balse Cabdicasiis Laftigareen waa la arki doonaa halka uu ku dambeyn doono maadaama uu hayso shacab weyne kuwaas oo mar walba diyaar u ah inay u garab istaagaan sidii uu horay ugu garab istaagay inuu maamulka gaarsiiyo horumar ballaaran. xildhibaanada qaar ayaa lacag waxa lagu soo siinayaa inay abaabul ka bilaabaan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Damul Jadiid oo markii hore ku ololeynayay inaysan sameeynin argoosi siyaasadeed ayaa hadda u muuqda inay bilaabeen iyagoo oo xukunka haya muddo 10 bari ah argoosi siyaasadeed midkii ugu foosho xumaa iyagoo dil iyo sidoo kale hantida ummadda Soomaaliyeed dhicideedaba horay ka bilaabay. waa saaxiibayaal intaas aan kusoo gabagabeynaa warkaad ka daawanaysan Run Sheeg TV fadlan haddii aad nagu cusubtihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa channelka subscribe noo saadaan like na nagu dhiirigelisaan gambalka furataan soo warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle.